duhur wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaateen qodobada wararka ugu waaweyn ee duhurnimada waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in magaalada Dhuusamareeb lagu qaban doono doorashada madaxtinimada ee Galmudug dowladda Soomaaliya oo beenisay in magaalada Nairobi kula shireyso wakiilo ka socda maamulka Somaliland wafdi xildhibaan iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya maanta gaaray magaalada Cadaado iyo kulamo halkaas wali ka soconaya xildhibaan iyo wasiiro oo xal u raadinaya xiisada wali ka jirta magaalada Beledweyne maanta gaaray magaaladaasi gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan oo sheegay inta lagu guri jiro toddobaadka xorriyadda la adkeyn doona ammaanka magaalada Beledweyne wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya warqadaha aqoonsi ka gudumay danjiraasha dalalka Austria iyo Canada ay soo magacaabeen Soomaaliya bam loo adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka oo laga helay bartamaha dalkaasi Jarmalka iyo wadamada Faransiiska Jarmalka iyo Britain oo ka walwalsan heshiiska Iran adeega 3G iyo 4G internet ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ku doora xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta Somtel sida waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta duhur wanaagsan waa 25 bisha June 2019 u diyaar garoobaha wararkaas oo dhan inaad maqashaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu si cad u sheegay in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug lagu qaban doono doorashada madaxtinimada ee Galmudug ee la qorsheynayo in ay sanadkan ka qabsoonto deegaanadaasi Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo daqiiqado kor boqolaal dad ah oo lagu soo diyaariyay bartamaha magaalada Dhuusamareeb kula hadlayay waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan mushkiladaha ka aloosan deegaanada Galmudug iyo waliba khilaafka Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya u dhaxeeya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo qodbad aan saas u badnayn halkaasi ka jeediyay waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha maamulka Galmudug waxa uu sheegay in magaalada Dhuusamareeb ay tahay magaalada lagu qaban doono doorashada waxa uu sheegay in dadka Galmudug markan ay u diyaar garoobeen doorashada asagoo carabka ku adkeeyay in madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ba ay ogolaadeen in doorasho lagu qabto magaalada Dhuusamareeb sida uu sheegay Ra'iisul Wasaare Kheyre madaxa fulinta dowladda Galmudug Sheekh Shaakir iyo madaxweyne Xaaf oo labaduba aqbalay inay ka dhacdo Galmudug doorasho dib loogu yeedheerayo Galmudug laakiin waxay tahay markay Dhuusamareeb diyaar ma u tihiin doorasho diyaar ma u tihiin إنسان بعدما مجال مدحين رجال مدوب بالكيمان عيان وحنا تبلا يا سياسي ويرجشوا مجال مدح وإني مجال مدح وكاتا هل كان وإني كحول كان هي ذا تقارا هي ذا هرمرنسا هي ذا سياسات هي ذا أمنية أوطن أو هير فنريلا وإن هي أمنية يكون هير فدرالي جماعة قبطان نظام سن قرأ ذيكتا شعب كرير Galmudug iyo qaranimada Soomaaliya gobolada dhexe oo taariikhahan adagtiin inay ka soo jeedaan haliyeeyo badan oo soo halgamay gobolnimada Soomaaliyeed ama reer Galmudug taariikhda hadii dib loo raaxo reer Galmudug waxa ay yihiin dad Soomaaliyeed oo la dhihi karo toddobaatan sano kahor ayuu Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise waxa uu Soomaali iyo reer Galmudug ka soo tartami jiray inuu yiraahdo qabiilku waa digirtilaaga qaranimada Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo daqiiqado ka hor khudbad ka jeedinayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayuu kaasi ahaa wuxuuna sheegay in magaaladaas lagu qaban doono doorashada madaxtinimada ee Galmudug xilli madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaafna oo habeen hore uu shaaciyay qudhiisa in doorasho la qaban doono kana dhici doonto magaalada Cadaado meeshaas oo wali uu ka muuqdo khilaaf xooggan oo dowladda iyo waliba maamulka Galmudug ku dhaxya isla wararka kale Galmudug intaan aan ka bixinay xubno wasiiro iyo xildhibaano ah oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa isla maanta Muqdisho ka baxay waxayna gaareen in magaalada Cadaado halkaas ay kula kulmayeen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo ugu dambeyn magaaladaas xalay uu soo gaaray Xaaf kadib markii gudi labe habeen hore uu ku hoyday asagoo ka soo carareen magaalada Dhuusamareeb xogaal waxay sheegayaan in xubnaha maanta gaar halkaas ay madaxweyne Xaaf kala hadli doonaan sidoo uu qaabili lahaa wafdiga Ra'iisul Wasaaraha oo ku sugan Dhuusamareeb oo la qorsheynayo inay tagaan Cadaado wararkaas waxaa dhameystiraya Rijaal Cabdi Maxamed
ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa galabta safar dhanka dhulka ah inuu ku tago magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka Galmudug isla markaana halkaas uu kulamo kala duwan kula qaato madaxweynaha Galmudug wasiirro ka tirsan maamulkaasi sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo halkaas ku sugan wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya oo hordhac u ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha kana baxay magaalada Muqdisho ayaa kordhow gaaray magaalada Cadaado waxaana halkaasi ay kulan kula leeyihiin xilligan madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaafa ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxa uu sheegay inay ka go'an tahay maamul dhameystiran loo dhiso maamulka Galmudug isla markaana dhammaan uu tagi doono meelaha khilaafyada kala duwan ay ka jiraan si bulshada halkaas ku nool uga hadlo xaaladda guud ee maamulka Galmudug kulamo kala duwan oo looga hadlayo xaaladda maamulka Galmudug isla markaana u dhaxeeya odayaasha dhaqanka degmooyinka Caabud Waaq Cadaado Gaalkacyo Hobyo ayaa xilligan waxay ka socdaan magaalada Cadaado waxaana odayaashaas ay kulamada la leeyihiin madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaafa oo sheegay in doorashada maamulkaasi ay ka dhacayso magaalada Cadaado saacadii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale wafuud kala duwan oo dalka dibadiisa iyo sidoo kale deegaanada Galmudug ka kala timid ay soo gaartay magaalada Cadaado iyadoo laga dareemayo mashquul ku aadan soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale kulamada madaxweynaha Galmudug looga codsanayo inuu qaabilo wafdiga ra-iisul wasaaraha ee ku soo wajahan magaalada Cadaado wararka Galmudug halka aan kaga baxnayso waxa naga xasuusana wax walba oo ku saabsan xaaladda Galmudug iyo wixii kale oo warar ku soo kordha halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa qabaha kale wararkeena ku jirana waxa kamid ah dowladda Soomaaliya waxa ay beenisay in magaalada Nairobi ay kula kulmi doonto wakiilo ka socda maamulka Somaliland xilli xalay dhan ilaa iyo shalayba la hadalhaya in magaalada Nairobi ku wada kulmi doonaan xubno ka socda maamulka Somaliland ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Tifo ayaa sii dhameystiraya warkan saacadihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in wakiilo ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee maamulka Somaliland ay ku shiri doonaan magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaana warar hadda soo baxay goor dhaweedna uu baahiyay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Dr. Maxamuud Diiriye Xirsi Fuursade uu ku sheegay arintaasi inay tahay been abuur war qoraal ah uu ku soo daabacay bogga Twitterka uu ku leeyahay ayuu ku sheegay in gabi ahaanba uusan waxba ka jirin shirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xubno ka tirsan Somaliland ku wada yeelan doonaan magaalada Nairobi oo warbaahinada qaar ee Soomaalidu ay baahiyeen hayeeshee waxa uu xuseen dowladda Soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay inay la hadasho Somaliland kana qanciso tabashooyinka ay sheeganayaan balse ay u baahan tahay in la go'aamiyo waqtiga goobta iyo ajandaha looga hadlay doono waxaa xusid mudan in maamulka Somaliland wakiilkeeda wadankaasi Kenya u fadhiya uu shaaciyay in ay kulan ka dhici doona magaalada Nairobi maanta ay ka qayb gali doonaan wakiilo ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hormuud u yahay Dr. Nuur Diiriye Fursade iyo sidoo kale maamulka Somaliland waxaana sidoo kale uu sheegay in beesha caalamka dad ka socda ay markhaati ka noqon doonaan oo wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka oo lagu daray safiirka Turkiga ee wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan Olgan Bega iyo sidoo kale urur goboleedka IGAD marka laga soo tago hadalka agaasimaha madaxtooyada Villa Soomaaliya Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fuursade ayaa Somaliland dhankeeda wakiil u hadlay waxa uu sidaas uu ku nuuxnuuxsaday waxaana jirtay in saacado uun kadib agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya uu ku sheegay been abuur warkaasi aysan dhici karin iyadoo aan la iska warqabin wada hadalada maamulka Somaliland iyo Soomaaliya markana Hiiraan magaaladaas maanta waxaa gaaray xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka iyo waliba wasiirro oo horkacaya wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre xubnaana waxa ay u gaareen halkaasi xal u helista wali mushkiladaha ka jira magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay ka dhalatay kadib markii xilka laga qaaday ama shaqada laga eriyay gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaas oo asna ugu dambeyn uu diiday in xilka uu wareejiyo xubnahan oo horkacaya wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa gaaray maanta magaalada Beledweyne waxayna sheegeen in galabta ilaa caawa halkaas kulamo aan loo kala kicin ay kula qaadan doonaan
dhinacyada isku haya magaalada beledweyne gaar ahaan waxay la kulmi doonaan madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo weli ku sugan magaaladaas iyo weliba gudoomiyihii xilka laga qaaday ee diidan in xilka wareejiyo yuusuf dabageed oo asna magaalada dhinac kamid ah ku sugan waxaana xubnahan ay noo sheegeen in kulamadaasi kadib ay go-aan ka gaari doonaan ama la xalin doona buuq halkaasi ka jira sidaas waxaa daqiiqad ka hor qadka telefoonka ay ugu sheegay xildhibaan nuur iidow beyle oo kamid ah xubnihii maanta gaaray beledweyne. bismillahi rahmaani rahiim marka horeysa waa aadan idiin soo dhaweynayaa marka labaad magaalada beledweyne aan tagnay waxaan u tagnay arrin muxuu ahaa inaan dadka marka hore meeshana laga soo doortay maadaama ay tahay inaan dhibaatooyinka jiro dadka aan ku noqono wixii taagtaagan oo arrimaha jiraan waxaan ka qaban karnaa ka qabano xog wareysina dadka la yeelano waa qodobka koowaad iyo qodobka labaad xurguf meesha ka jirto buuq siyaasadeed oo maalmahan taagnaay inaan insha allahu tacaala iyadana xalin labada arrimood aan u nimid magaalada beledweyne. way buuqa iyo weliba qalalaasaha ka jiray hiiraan dabcan hadda ma bilaaban oo dhowr toddobaad ka hor u jiray marka maxay tahay sababta hadda u gaarteen idinku? wallahi waa rabnay in muddaa tagno marka waxaad moodaa xoogaa arrintoona daba dheeraatay kadibna waxaan go'aansanay inaan tagna anagu nafteena oon markaa ka qayb qaadano xalka laakiin insha allahu tacaala waana gabagabayn doonaa haddii la yidhaahdo waana dhamayn doonaa waxa taagan. way howsha ugu horeysa marka idin hortaala aad qorsheynaysaa inaad qabataan maxay tahay? inaan aragno muxuu ahaa baaxadda buuq wuxuu leeyahay aan aragno jaanibiyada iyo muxuu ahay labada qofood ama wareysigan oo dhammaystiran iyo wixii kaloo macluumaadyo ay kasoo kordhaa arrimaha hiiraan waad dhegeysan doontaan. isla hiiraan wararkada intaanan ka bixin gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan waxa uu sheegay inta lagu guda jiro toddobaadka xorriyadda ilaa adkeyn doona ammaanka magaalada waxaana hadalkan uu jeediyay kadib kulan waqti badan qaatay oo magaaladaas ay ku wada qaateen saraakiisha ciidanka amisom ee nabadgelyada u jeega magaalada iyo weliba madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ugu dambeynna gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne waxa uu sheegay in toddobaadka xorriyadda oo munaasabado ka dhici doono caawa ugu soo horeysa magaalada in amnigeeda la adkeyn doono sidoo kale magaalada ay ka dhici doonto 27 Juun oo markii ay xornimada qaateen dowladda Jabuuti oo walaalahan aanay waxa uu gudoomiyaha cusub oo sheegay in ciidamada ammaanka heega la geliyay kana shaqeyn doonaan xasilinta amniga. dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan uu shir gudoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle maxamed cabdi waare ay ka soo qaybgaleen taliyaasha ciidamada Soomaaliya taliyaha ciidanka SNA taliyaha ciidanka maxaa la yiraahdaa booliiska iyo taliyaasha ciidamada AMISOM loo yaqaan sector 4 shirkaas waxa looga hadlayay dhammaan sidii wadajir looga shaqeyn lahaa amniga gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne sidii la iska kaashan lahaa in la xasiliyo gaar ahaan magaalada beledweyne iyadoo la xusayo maalmihii xorriyadda Soomaaliya oo 26 Juun 27 Juun maalinta xornimada jamhuuriyadda walaalaha Jabuuti iyo maxaan ku raahdaa maalinta xornimada Soomaaliya 1 Luulyo marka waxaan soo jeedinayaa reer Hiiraan khaasan reer beledweyne inay amniga sugaan inay nabadgelyo. wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu warqadaha aqoonsi ka gudoomay danjirayaasha dalalka Austria iyo Canada oo dalalkaas ay soo magacaabeen oo wakiilo Soomaaliya u joogi doonaan. maxamed cabdiraxmaan ayaa warkana dhameystiraya. wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa wasaaradda kaga gudoomay nuqul kamid ahaa warqadaha aqoonsiga danjiranimo ee mudane Dr. Christian Florence safiirka u qaabilsanaan doona dowladda federaalka Soomaaliya dalkaasi Austria. inta lagu guda jiray kulanka waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada geesood oo ay u dhaxeeya labada dal iyo saaxiibada ay sida ay ku yihiin sida oo sheegay danjiraha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi. waxaa la sheegay in lagu horumarin lahaa dhinacyada kala duwan ee nafciga ugu jira labada shacab iyo labada dal arrimaha ay ka wada hadleen. dhanka kalena wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi ayaa maanta xafiiska wasaaradda kaga gudoomay nuqul kamid ahaa warqadaha aqoonsiga danjirinimo Marwo Liza safiirka u qaabilsanaan doona Soomaaliya wadankaasi Canada.
wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa u rajeeyay safiirada cusub ee Canada iyo Australia in ay guul ay ka gaaraan howlaha loo igmaday isagoo carabka ku adkeeyay in uu taageero dhammaystiran oo la garab taagan yahay labada dowladood xiriirka xoojineed ee labada dal u dhaxeeya xiriirka xoojineed u dhaxeeya Soomaaliya Canada iyo Australia ay halkeeda laga sii wadi doono waxaana uu sheegay in loo baahan yahay howlaha loo igmaday safiirada u qaabilsanaan doona Soomaaliya wadamada Australia iyo Canada in ay halkooda ay ka sii wadaan warbixinta ugu dambeysay warkeenan waxaan ku eegi doonaa wararka Soomaalida ka baxsan ee caalamka intiisa kale waxaa kamid ah wadamada Faransiiska, Jarmalka iyo Britain waxa ay ka walwalsan heshiiska Iran oo hadda qarka u saaran inuu burburo ku yimaado heshiiskaas oo ah midka lagu xadidayo awoodda hubka nuclear-ka. saddex dal oo ah kuwa ugu awooda badan qaaradda Yurub ee heshiiska dhinaca nuclear-ka la galay dalkaasi Iran 2015 ayaa xaqiijiyay go'aankooda uu yahay sidii ay u badbaadin lahayn heshiiskaasi inkastoo Mareykanka uu ka baxay heshiiska sanadii 2018. Faransiiska, Jarmalka iyo boqortooyada Britain waxa ay dalkooda waxa ay sheegeen inay ku dadaali doonaan in ay fulinta heshiiskaas uu dhaco oo uusan burbur ku iman xeerka 231 ayaa taageeraya heshiiska nuclear-ka ee dhacaya kaasoo Iran iyo waliba 6 kamid ah wadamada ugu waaweyn qaaradda Yurub ay wada galeen oo Mareykanka ku jiro sanadii 2015. Donald Trump ayaa bishii May 2018 waxa uu ka baxay heshiiska waxaana hadda taagan xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxeeya labada dal ee Iran iyo Mareykanka. Cunaqabateyn isdaba joog ah ayuu maamulka Trump uu ku soo rogay shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda Tehran waxaana ugu dambeysay tii lagu soo rogay hogaamiyaha ruuxiga ee Ayatollah Ali Khamenei. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa ku tilmaamay Mareykanka inuu diyaar u yahay dagaal saa darteedna ayagu dhankooda aysan ka gaabsan doonin dagaal inay la galaan Mareykanka. dalalka heshiiskan la saxiixay ee 4 sano kahor ayaa hadda garab taagan Iran oo ay ilaalinayaan inuusan heshiiskan burbur ku iman uusan burburin. gudahaan wararka aad ka daawanaysan janaalkana xulka wararka daawadayaal halkaas ay maanta ku soo gabagabeynayaan nabadgelyo.